بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مضيال يمروين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي runtii waxaa maanta sharaf noo ah in intana aqoonyahana oo waliba ah aqoonyahankii ku dhex tababartay shaqaalaha dawladda iyadoo marka hore aan moodayay aqoonyahan guud aan moodayo sidii marka hore Cabdilaahi u dhigay jaamiciintii Soomaaliland oo isku dhalo group soo abaabulan moodayay laakiin aakhirkii ma noqotay in shaqaalihii dawladda ee maartay civil service institute oo diray majority-giisi ama deegaanada wada tii maraynayo taasi oo runtii farxad weyn bay noo tahay waxa weeyaan waa mucdi dawladda reformyadii la kowsanay ama markaan muddada xilka qabanay aan bilowna waxa ka mid ahaa in civil service reform ka mid ahaa judiciary-gaasi ninkii halkaada sheegay ka mid ahaa marka aqoonta kor loo qaadayay jaamacadaha laga diray waxay ka mid tahay inaad kor loo qaado maartay tayada shaqada taasina waxay la rabaa guud ahaanteen ninku markuu wax soo barto inuu dee iskarab dhigin baashe inanta runtii kelmad fiican sheegto fayso baa waxay tiri waxyaabaha laynoo indhaha laynoo leelinayahay wixii dee boogta aan leenahay ama dabeecadda aan leenahay wayna qaadanaa kumid markaa laga fiican tabarutida oo kelmadda aan qor aan la qariyo weyn ninka waxaad moodaa shaqada dadkan ajaanibku waa cibaado sidaan cibaadada u cibaadaysanay diinta u cibaada salaadii wax loo ilaaliyo ayay shaqada u ilaaliyaan inuu waxaad moodaa shaqadu qiimo badan inoo sabaysa agteena qof waa iska sanad fareer saacad uga shaqeeyo saacad shaqo u dhaqaaqaya marka bilaad waxaynu u baahannahay inaan commitment bilaadku commitment-ka team kasta oo meel jooga hadduu commitment wada yahay oo hawsha commitment ku yahay waxbuu sixi karaa waxbuu hagaajin karaa laakiin si marka commitment ku jirin waxa weeye wax badan ma hagaagayaan marka waa sax aqoontii iyadoo halkan taala in dibad loo doontaa ma habboona waxaa loo baahan yahay in annaguna aqoontii halkan taaleen xukuumadda adeegsato idinkuna commitment-kii caynkaas ahaa ee wixii laynii dirayay fulinaya noqotaan waxaan markhaati ka ahay oo dee wixii jireen la isku sheegay weyaan boqolaal hay-adood baan samaynaa boqolaal institution baa la sameeya hay'ad madaxbaan la sameeyaa waxaad moodaa institution-ka ama hay'adda marka la sameeyo 6 bilood hore baa dayo biric oo akhyaar badanayo marka dambe waxaad moodaa inuu yar iska baar la iskaroobay hadda lacagta yar basha la iska qaadanayo mushaar la qaadanayo oo qofkii bilaanka commitment-kii uu ku soo galay waad moodaa inuu hore motivation hore u soconin marka waxa weeyaan midna way jirtaa oo laba dal la dafiri maayo aqoonta waxaad moodaa weli inay wax ku yar fadhiyaan aqoonta waxay wax ku yar fadhiyaan iyay weli moodaa sidee dalkan burbur baa ku dhacay dhismaynu bilownay burburka ku dhacay dhismay markaynu bilaabayna waqtigaa waxbaa loo baahnaa allah naxariistay hogaamiye cigaal madaxweyne inta allah naxariistay wuxuu yidhi yaa malaa nin loo keeno la yidhi ninka ma af carabiga ingiriisi yaqaano caynkan oo wax qor baa la yidhi waran nin af carabiga ingiriisku aad ma rabin nin ciidagala ma rabin gurano yani muxuu jeeday saacadda xaalad taagneed baa cayn ka ahayd waxayse moodaan weli tii ku joognay ilaa imika horta wanaagsan ilaa maanta inuu weli tii ku joogno weli aqoontii ay sidii loo rabay oo aan la qaranay in weli la adeegsan waxaase loo baahan yahay waqtigii aqoonta la adeegsanay weeyaane idinkoo dib waxay idinka xoog batay caaqil yaro waxaan xoog bartay jirin baa saacad walba sankaa naga soo goyla wasiir iyo cilmi hoos joogeen dee sida ciidisada meesha ka aqoonta ka saarto ciidisada aqoonta meesha ka saarto waqtigii aqoonta la joogaa waa laga gudbay maanta uu ka dhigid iyo maartay kuma jirno waxaan waqti dalku difloomada iyo horumar joogaa waxaad halka ka sharxaysay oo dhali waa waxa baahida loo baahan yahay weeyaan waa shuruucdaan sheegayna iminka muddadaan joogna anagu isma ammaanayna intaas oo shuruuca oo qabyo ah baan qabyo tirnay in badan oo ina sugaysaana way jirtaa waa runta marka haddii dee qofkii intii dadkii aqoonta dalka usoo bartay ay samayn karaan sababaan ugu kharash garayno ama looga yeerno ajaaniba ma jirto laakiin sida hala fadhiinado kuyeeda kugu dhiino fadhiga ka soo kaca marka waxaan aad iyo aad runtii u hambaleynayaa maxadka runtii CSI dadaal badan buu sameeyay si loo soo bilaabay isku xirka dawladda Itoobiya runtii oo iyadna inaga caawisay inay maartay maadaama aynu dal cusub ahayn inay jaamacadda ay nagu caawiso rag ka soo shaqeeya hadday maartay agaasimayaasha maarayaasha hore gudoomiyaasha hore yihiin iyo hadday rag weli maanta dawladda jooga yihiinba
runtii ilka casoo kale waa waxaad moodaa ragga noo qaabilsan xiriirka Ethiopia oo saaxiibo badan ku leh agaasimaha guud maartay wasaaradda shaqada waa in la xuso qofka bini'aadamka wuxuu qabto ma hadda in badan baa leh idinkuna intii wax soo baratay magacii daafacday si wanaagsan u soo baratay sharaf iyo karaamada waa idinku soo dhaweynaa kulankeena maanta wax badan baynu kala faa'iideysanay inaan taliya tusaaleysa siinahay mar walba way habboon tahay sidii maad sheegteen bini'aadamku inuu waxayna wax badan naga khaldamaad moodaayo wax badan oo saxan lahayn inaynu halkan media la soo joogsano oo media waxaad moodaa si khaldamaan u isticmaalnaa dee si ka badan baa ummadda isku saxdaa waa saa sheegteen talooyin baa la isku soo jeediyaa waa la isku yimaadaa waa la wada hadlaa halkaa waxaa ka toosiyaa la isdhahdaa si wanaagsan oo qurux badan oo dhigteen marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa talooyinkan aad u soo dhaweynaa aad iyo aad u soo dhaweynaa in cilmigii la qiibageliyana waan qaadanaynaa golaha wasiiradana aniga madaxweynuhu waxaan faraynaa in wasiiradu ay wasaaradaha ku noqdaan ninkii aqoonta la qiibageliyo oo kor loo qaado taana waa idinka ballan qaadaynaa sababtoo waxaa laga yaabaa sana sheegayo weli dhaqanku la jiidanayo iyadoo wasaaraddii nin joogo master nin PhD ayaa mid dusha naga keenay dee dusha laga yaabaa yaa laynoo keenayaa markaa kolley dee waase waynu dhismaynaaye wax badan baynu bedelaynaa insha allah aqoontiina shaqaysaynu bedelaynaa inaynu civil servantka ka saarno siyaasadda ka saarno noqdaan dadkii dalkan dhisayay iyo wasaaradaha koorkoodii iyo mucdoodii inay noqdaan yaa insha allah ku sameynaa insha allah hadda wixii hore waxaan asaa maxamuud sheegay wixii bilaan weeyaan waa la waxbaa ka nin shaqo qabtay wax ka khaldamaan wixii naga khaldamay ama naga beelahayna dib baynu saxaynaa insha allah intii badnaydba waynu joognaa idinkuna ha niyad jabina annaguna waxaan diyaar nilanahay in aqoontii kor u qaadno oo maanta aqoontii halkeedii soo gelino maadaama dee inagaa horumar iyo inaynu aynu gaadhnay inaynu xidhiidho caalami samayno inaan maaragtay sharikadaha maaragtay waaweyn oo maalgashi dalku sameeyaan keennay marka noocaa tahay dee ciddii la dhilgaraysa loo baahanayso beritoole waxaa wasaaradaha hay-ad kasta oo ama kambani kastoo yimaadaay dee saa sheegteen linki buu ku leeyahay meel buu ka soo galaya haddii markaa ninkii halkaa joogay aqoonta lahayd la motivate garayn dee inaan aqoon lahayn maaragtay xidhiidhkeedii iyo wanaaggeedii noo samayn kari maayo waa aad iyo aad baad umahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu